kume kumarke kuwashaye kume kumarke kuwashaye kume kurbadiya jacaylkiyo kaarkuwa ku daaye kaalayo kalgacayluken anna waay kan yeedhaye kalaye ilaha ka jogadiga maahe kume kumarke kuwashaye kume kumarke na madaxa ruuxde kuwashaye kume madaxa la ruuxaade heesta lagama sheekeyn karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtana daawanaysa aad baan idin salaamaya meel walba adduunka ka joogtaan maanta waxaan halkan usoo fadhiisanay anigii Ansel inaanu ka jawaabno su'aalo fara badan oo bulshada isliya ku nool aan marar badan la dhex qaadnay mikrofoonka ayaan rabnaa maanta inaan halkan uga jawaabno Ansel bal shantii u dambeysay ibrahim dadka weydiinaysa bulshada salaam horta madaalo waad mahadsan tahay dhammaan asxaabta ku xiran madaalo official iyo Ansel TV meel kasta joogan waan salaameynaa in badan waxay dadkana soo weydiiyeen waxay dhaheen waxaad ka jawaabtaan su'aalaha wad iska soo qaadataan ma ahane ma taqaanin jawaabahaba marka dad badan aan ugu eedeeyay anagana mar walba waxaan ku fikirnay inaan programka ugu yaraan 10 su'aalood ama 5 su'aalood ama ilaa 7 su'aalood inaan hal mar ka soo wada jawaabno inta program saan oo kala sameeyno maanta inoo suurta gashay su'aalo badan baa jiro oo dadkan in badan weydiinay hase ahaatee su'aalihii ugu dambeeyay labadii usbuuc hadda la soo dhaafay baan isku xiri doonaa madaale wuxuu ka jawaabi doonaa 4 meeqad ka jawaabaysaa horta madaale last week waxaan su'aalaha dadka weydiinayay qad ka jawaabaysaa 5 xabad ka jawaabaysaa 3 kamida iyo 2 hore 5 waan ka jawaabi karaa waagaag aniguna sidoo kale inta ileeg ba ka jawaabi doonaa dadkana waxaan leenahay jawaabaha sugi waayinina waa idin soo wadnaa ha ka degdegnina laakiin waxaan u soo gelino su'aalaha inay dadku maskaxda ka shaqeysiyaan oo mid qof walba isku dayo inuu isagu ka jawaabi karo laakiin haddaan barnaamijka su'aalaha iyo jawaabaha israacino faa'iido ma yeelanaya sax haayo dadku yacnaha waxay rabaan bay soo qorayaan qaar waxay ku leeyihiin hadda waa kanaad leedahay waxayna ayagu garanaynin bay dadku soo weydiinayaan aad weyn qofba si buu fakarayaa inta badan su'aalaha dadkaan weydiino waa laga jawaabaa inta badan waa laga jawaabaa si wacan laakiin bulshada markay qofka marka ay meesha taagan uu ka jawaabo su'aasha ma sheegtay aad waad ka jawaabtay ma dhahdidii maxaad ugu dabagediyaa hadalka oo u dhaxlaa ma garanaysan maxaa u dhaxlaa qofka ma taqaana hadda hal yaraan 3 su'aalood oo wada taamisa 4 qofku waxa laga yaabaa hal kamid inuu ka jawaabay marka maadaama uu intii oo dhan ka wada jawaabay waxa leedahay ma garanaysid hadda tiraad laakiin wad ka jawaabto wuxuu marana kulli inuu ka jawaabay dadkina marka qalad u fahmayaan marka sababtaas aan saas u dhahaa aad iyo waad mahadsantahay dadkan su'aalaha dadkan soo weydiiyay aad ayaan ka jawaabay anigu 3 kamid ayaan ka jawaabay saacadan aan fadhiyo hay madaalo ana ku bilaabo haddaan ku hormaro su'aashii ahayd goorma ayay haweenaydu laba nin si xalaal ah u qancin kartaa intaada ka jawaabin su'aasha dad badan wax isweydiiyeen waxaan rabnaa su'aasha intaada ka jawaabin hor dadka yani dadka say ugu soo falceliyeen maadaama maaragtay community-yada ama dadka meelaha privacy wax noogu soo dirayaan akhrino dadka waxay dhaheen qof wuxuu dhahayaa waxa weeyaan waa dumaashigeeda iyo ninkeeda qof wuxuu leeyahay waxa weeyaan qof marti ah sidoo aragtay su'aalahaas dadku markii su'aasha la weydiiyo horta qofka su'aasha markii kadis looga dhigo inta badan ma garto sax laakiin markii uu dhaqaaqo ama uu ka yara maqan yahay ama wixii uu daawado sida gan maskaxdiisa haduu uga shaqeysay uu garanayaa si fiican dad comment waxay ku soo qorayaan iyo dadkii macnaha su'aashaas marka ayada ka falcelinaya weydiinayba inta badan way garamarayeen sax rag waxay lahaayeen waa dumaal waa markii ninku naagta ay ka dhimatay walaalkeed uu dumaalo qaar baa lahaa qaar waxay dhaheen markay gabadhu saa u iyada uur leh intay saan u dhashay habeenka 40 ka baxdo qaar baa lahaa aad weyn qaar waxay dhaheen hadii la habdu soo gal yahay jawaabta su'aashaas maxay ahayd markii madaalo su'aasha jawaabteedu waxa weeye haweenaydu habeenka ay si xalaal ah laba nin gogosha u qancin karto waa habeenka ay 40 ka baxdo ayay wiilkeeda naaska jaqsiinaysaa si wacan su'aashu waxay ahayd habeenka ay si xalaal ah haweenaydu gogosha ugu qancin karto laba nin ha labadan marka midna waa mid ay dhashay iyadu midna waa kii qabay oo indhaha u shidaayadii hadda ma ay garato marka labadaas weeyaan marka kan naaska jaqsiisay way siisay sax kana de shaqadiisu qabsado madaalo su'aalaha waxaan rabnaa inaan isku dhex darno
سؤالي هوري هذا سؤال شنو حياة سؤالي قدام بيات كويدين نسي سؤال هورا شرتي أو أهيد جيل هالمر كليو أركا قرمي ويان سؤالها جيلة ده جيل هاي مالك حردايا لفتيدو ده جيلة عادي ميكروفون لودي جيل مكورن أدوي marka su'aasha geel waa la garan waa inta badan geeleyba ma ahan su'aasha aan weydiinayay dadka badan aan loo ay dhaqanayaan oo maleena loolay bay u badnaayeen su'aasha dadka aan weydiinayay ahayd geelu hal mar erka halka mar oo goorma waxa geelu hal kamar oo erka si toos u arko oo marka uu galgalimeysanayo aasha marka uu galgalimeysanayo erka sababtu geelu uu galgalimeysto maxaa waay sababta geelu uu galgalimeysto geelu markuu galgalin arko uu ku leexdaa aasha way galgalimaysataa sababta uu galgalimaysanayso malaha culay saaran ba galgalinta kaga dagay wallahi garan maayo su'aashaas sababta geelu galgalimayso garan maayo su'aalaha hadda labaad ka jawaabtay anigana kuwayga waa loo salaamin dan madaal ay weydiin doonaan su'aalaha su'aasha saddexaad waxa weeyaan waxay ahayd su'aalihii hadda ugu dambeeyay iyadana ahayd waan qubaystaa haddana waan yaraadaa sababta yaan ahay anigu saas ay ahayd dadku deewadarkiisa inta badan way garanayaan qof wuxuu ku dhahay madaala tahay qof wuxuu ku dhahay uskug giba tahay waa kii qaarkood ilaayeen marka su'aasha waxay ahayd mar walba yaraado waan qubaystaa yaan ahay marka inta badan dadku way ka jawaabeen inta badan su'aasha way ka jawaabeen dadka badan waxay ahayd saabuunta ay ahayd saabuunta u baaday markii lagu qubaystay yaraata qofku ma yaraado dadku waxay isweydiinayaan sababaha su'aalaha intaas oo dhan loo soo maray waxa weeyaan maxaa weeyaan يعني أنا وان قبيست هذا وان يرى ذا كمان هاي دتك سربيب على وقت جاي بس قفك هذا سيد عدو لي ما دمرك وقرنيا سربيب تيبا فهم وباهم سربيبتو وقتي هذي يعني وقتي وحلا سربيب يشري يعني سنقوا وحوي نسربيب كاغري ninku siiyay kugu faan marka haddaan ereyga sarbeeb laga dhigin oo sidaas macnaha loo weydiino bulshada ee horeyba nin walba ka soo tufaya si wanaagsan horeyba ka sheegaya su'aashii ahayd ee saddexaad ahayd su'aasha afraad ahayd geedkii ugu horreeyay ilaahay adduunka ku beeray ayadana waa laga jawaabay inkastoo dadka badankooda ay garan waayeen laakiin shakhsiyaad ka jawaabay baa jira geedkaas waxaa saytuunka warun su'aasha dad badan ka jawaabay laakiin dadka maxaad ugu dhiibay dadka jawaabay dadka de adiga ma u jawaabahay maxaa ku dhacan anigu ma badhihin ba waribada waad ka jawaabtay waad garan weydaa in baa la soo boodayay marka waad ku saxsanayd hadda dhahdo qofkii wixii waad garatay deeka ku xiga soo istaagaya asna sidoo ka wadada kaas maray buu maraya marka mar walba waad ku saxantahay inaad garan weyday laakiin hadda ayanu sheegaynaa inuu gartay oo halkan ka daawado waagay su'aasha kale waxay ahayd su'aalaha aniga kuwaygu way soo dhamaan geela ku laabo geeli waan dhameeyay geelu su'aasha geela markuu la raamsanin geelu markuu saraamsan habeenkii uu saraamsan taas waxay ahayd geelu markuu aad u dhargo ee dhul barwaaqo joogo ilaa habeenka siqda dhexe dambe laga gaarayo ma raamsado si wacan habeenka uu libaaxu ku joogana ma raamsado oo cabsida dareemay labada habeenba si wacan ma raamsado waa markaagii soo ridaan kule gabadhiya waagaag anigana waxaan wataa anu 4 su'aalood ka jawaabaya 4 su'aalood bal ku hormar su'aasha ugu badan ee dadku ay isweydiinayeen ee marar badan xataa aniga luuqa iyo commentiga iyo meeladan laga soo weydiiyay shay walba baariya su'aashaas aad bal isoo weydiinay su'aasha dadka jawaabaa jira shakhsiyaad ka jawaabaa jira goobta dadku weydiinayna dadka ka jawaabay miyaa jira may qof ka jawaabay ma jiro qof ka jawaabay ma jira ma goobtan dadku weydiinanay laakiin commentiyada waxa arkay dadka jawaabay iyo hadda goobtii laga jawaabin waxaanu iminka dadka ugu sheegaynaa baynu dib u dhigano ilaa laga jawaabo dadka hadda waa usaga sheegaynaa dadku waa sheegaynaa Soomaali waayay maadaama aad noo soo weydiiyeen inaan sheegnaa ama waa la qumanta madaalo horto su'aalaha halkan waxa uga mahad celinayaa asxaab aad u wanaagsan oo badan oo nagu xiran ba su'aalaha badankooda la soo wadaagay qaarkood su'aashaas waxay ka mid ahayd su'aal oo daawadayaasha Madaali iyo Ansel TV ku xiran ay la soo wadaago ku sugan Djibouti Roble Royal dhahaynankaas reer Djibouti weeyaan asagana waan ka salaamayna halkan aad iyo aad baan salaamayna Roble sidoo kale Ansel aan ku laabtay adiga ay soo xasuusiyay su'aashii ahayd haweeneydu goormay laba nin si xalaal u wada qanaysaa nin South Africa jooga ayaan ila soo wadaago magaciisa la yiraahdo Abaasa Garaad ayaa soo wadaagay aad weyn
marka asxaabta dad waxa jira jecel in su'aalo badan haayo oo jecel in dadka bulshada la wadaago laftigooda haday way noogu soo diri karaan la soo wadaagi karaan asxaabtana la soo wadaagteen way ku mahadsan yihiin su'aashaas waxay ahayd shay walba u baahan yahay shay walba u baahan yahay waa su'aasha dadka dhan madaxooda ka dhex guuxaysa aadoon su'aasha bal dadka u jilciyo say ahayd bal kor istaag walaal su'aashu waxay ahayd shay walba u baahan yahay qofku wuxuu dhahaa cirka laftigiisa u baahan baa ku yeedhay wax walba oo la sheegay asaga u baahan su'aashaas dadku way fududahay iyagu meel fog bay maybe ka raadinayaan waxa isleeyihiin su'aashan tolo maxay tahay way ku wareereen laakiin su'aashaas waxay weeyaan magaca because wax kasto shay kasto maanta dunida saaran magac baa leeyahay magaca loo bixiyaa Soomaaliya guriga aan saarannahayba waa guri waana magac madaal magac ma ka maarmay magac ka maar wax ka magac marka su'aashaas ay ka raadinayeen ma jiro jawaabtu marka waxa weeyaan magaca waxa dunida saaran kasto dunida saaran baa u baahan waana magaca waxaan magac lahayn ma jiraan adduunka ma jiraan su'aashii koowaad horta taas weeyaan taasay su'aashii labaad waan dhintay waan noolaaday waan ku hortaagnahay dadku aan ku wareereen su'aashii waxay ahayd iyadana hore wax kasto dhasha way dhintaan hore uma dhalan وانا بنتي أنا ويانا سؤال أدبل سويديني سؤال بدن شخصيات كتوابين ما ترين أنت سؤال دتك ويديني سؤال هل قف بكتواب دتك هل مسلم هل قف دتك ويديني ما يأمرك يعني جوبتنا اللي تشوجها هل قف بس كتوابي لكن دتك بدن كودر إنك مية توابين دتك لفت كودر كومنتي بحنيه ويراين دتك كتوابين صح سؤال dadka u faa'iideey su'aashaas waxay ahayd wax kasto dhashay way dhintaan hore uma dhalan waana dhintaan ugu yaanahay su'aasha jawaabteedu waa nabi aadan hore uma dhalan wuuna dhintay marka su'aasha jawaabteedu waxa weeyaan waa nabi aadan bay ahayd su'aalo badan baa iyaguna jiro oo su'aalihii hore oo ay dadkuna soo weydiinayeen inta kala maqnayn kuwaana dadka uga jawaab hadda su'aalaha ugu badan ee dadka na soo weydiinayeen ugu badan dadka wareeran waxay ahaayeen oo maalintii aan barnaamijka qabanayna dadna weydiiyeen waxay su'aashii ahayd aabbe iyo hooyo 9 cunug isku dhalan waligood saarkii سؤال أنت بدن حتى شخصيات كتشوف ويجرا dadka aad bay noo weydiinayeen kana marar badan bay weydiiyeen ruux baa soo isku joojin wala su'aashaas maxay ahayd marka su'aash hadayna hadda ka jawaabin joojinta kugu badanaysa iyo su'aasheeda marka hadda uga jawaab sagaalka hooyo iyo aabe isku dhalay 9 cunug oo wiligeed arkin waa hooyo iyo aabe dhalaan laba indhoole عادي دوك فهم أن يعني ده وين دولة المنا ويسكون لنا ويلي قدنا من النساء دولة الناس وش ذا يوم إلى آخر كذي الحمد لله أوكي سؤال شكله dadka iyagana ay weydiinayeen waxay su'aalaha horta way farabadnaayeen hada su'aalaha inta dadka weydiinay ama anta su'aal dadka weydiinay maxaa kugu la yaabana aragta aniga su'aalaha weydiinaysa wax iga daraaba ma jirin dadka waxaad weydiinaysay hadda leena soo weydiinayo kuwa kaliya adigu maxaad ka xasuusataa horta anigu waxaan ka xasuustaa tii salaada casar maba ilaa waba anigu salaada casar way u soo celcelisana way garab martaa salaada casar ka jawaab seen uga jawaabin waan iga ag maray waan ag maray hadaan marag maray soo kamaana jawaabin madaalo anigu su'aalaha inta ka jawaabaya waa intaas adigina waad ka jawaabtay su'aalahana jawaabahooda waan soo badinaynaa waxaan sameeynaynaa barnaamijyo noocan oo kala oo su'aalihii hore oo idinkoo aad garan weydeen oo kale inaad noo soo qortaan aanu idinka soo jawaabno madaalo su'aal baan ku weydiinayaa adiga أنا كده سؤال هذا كده ويدينا نسكو هنا سؤال ويديسو ما هن قرشهم سؤال هنا كتشوفنا هي يلا أساس تهيبا هذا ربعنا سؤال كويديو واي صح سؤال شو كويديني وحويان معلنت الويد أو برنامج كودن بيان سميني نه قلبت الويد ولا قبل باكوتمي صح قبل بسؤال كويديسي قبل السؤال شو كويديسي وحي هاي لبا ويسكو إذا لبا ويسكو نافطة لبا ويسكو تسع سؤال شاز مركي وقت حاضر كأنه لا شو تكمل جوابي أو تعالي دول بدل عادي سؤال ما هيسها سؤال جوابتي دوان هيا لكن أنا وحيلتها هي مركم يلا قاعد شبسي ما وحيلتها أنا وحنتعلم لها أنا دبوا إنه برشة دبوا يدينه بس هذا هو جوابه ما يقبلك وقول شيء زدت كوي أركان يقول تقول ويسكو ده اسكو ده بس مين تقاش كيف نسويها لا ما ده كانوا شيء هذا ها أنا دتك شيء كده
laba way isku idaabay laba labana isku idaa labana way isna fataa labana way isu dhitisaa labana way isu dhitisaa saasa kaga jawaabay maya jawaabteedii la rabaa jawaabteed ka jawaab laba way isku idaa labana way isu dhitisaa labana way isna fataa labana way isu dhitisaa maya dadka waxa magacyadooda labadaas iyo labadan ku taagnaa magacyo ma laha waa fartaas walaal sida dhagoolida dadka waxa ugu tilmaamaysaa waxa sameeyaa walaal waa indhaha gacmaha iyo lugaha وهجاج أصحاب تعد بمسيين سيدا نوجو حريين أصحاب تنوجو حريين أنا سؤالها إنه ويديان محاك لا يضحى أصحاب تحلل سؤالها إنه ويدين إنسان ماشي أنت هجنا مركا أيضا بالشدة عن وسؤالها كوي ديننا إنها سؤالنا ويديسان ودولوا السؤال حجانا ويديسان وحكيت على الله إن نوع نوصل صدرت سؤال كذا تاسان كتش على الله هذا وين أنا أدي دتك سؤالها إنه ويديان محكيت جوابي هذه سؤالها وقوب بدن اللي يسوي ويديان محكم بذا أنا سؤالها وقوب بدن دتك يسوي ويديان مدال اللي يجوا ويديه حويان أدي مدال مستعيشين مياد إسقطتين منين تيجي واستبت هاجنتين سؤالها وقوب بدن اللي ويديه ويان dadka maxaad ugu jawaabtaa anigu waxaan ugu jawaabaa ana ku sheegaya anigu waxaan ugu jawaabay inaan isqabin waxna naga dhaxaynin oo sheegtay intaas u sheegay ha marka aqbalay moogi waad ma santaa aan talay ay adigana maxaa lagu dhahaa anigana inta ay in ka badan wallahi dhaawali maxaad ku jawaabtaa marka su'aalo badan baa la weydiiyaa oo sida kuwa aad sheegayso jacaylka arooska goorma goormaad aqal gasheen arooska waxa gaaladu waxay dhahan coming soon bay dhahan gaaladu waxay dhahan waxa soo socda coming soon bay dhahan waa misoo qaldana coming soon bay dhahan gaaladu waxa soo socda waxay noqonay ilaahay baa talabaad gabadhan ma isjeceshihiin ma isku yaacdeen arooska waa goorma su'aalahaas way iga bateene iga yareeya waxaan la iga yareeya okay madaalo dadkaas iyaga ma wixii ka dambeeyay iyaga comment ku soo qori doonaan u faantay laakiin anigu waan u sheegay waxba inay waxba naga ma dhaxayaan mana isqabnaan dhahayn inta ma u sheegay haday qanci waayeen maxad dhih waxa ma dhahaye waa sax su'aal waxa ugu dambeeyaa rabo dadka badana hadda ka hor heesa ay qaad madaalo aniga waliga kuma heesin walaalahay ugu qasban madii heesin hadda ka hor anaga meel duur joogno soo madii heesin heesti baba هذا الحسوس اوكي marka maadaama dadka su'aalo badan soo weydiiyaan galabta hees baa ka codsanaya heestu ugu dambaysa barnaamijka soo xidhanay oo aanay ay qaadin adiga samaa maadan ku qaadaya walaal adiga hadaan ku heeso on ku heeso on hore kuugu heesay haddana waan rabaa wali ma sirta heestan hadda yaanaha aan qaadayo aan ku qaadi doono macna ku jira هي معناها ku jiraan isbuucan dhexdiisa ayaan rabaa بريتا ama saadamba ayaan rabaa bulshada inaan weydiiyo hal erey ku dhex jira ayaan rabaa halka erey ayaan su'aal ka dhigi doonaa hadii alla idin ka sii fikirade waa ka sii fikiraan ninka caawda wada waa inuu بريتو ay sax la yimaado ma xagaag hay يا isxasuusta labaan kala waaban waynagii isku wacnayne maxadiiga waree waaxyaha jiirka wadnahaygiyo beerka heestaa macnaha ku jira halkaasaan ku daynayaa heesa macnaha ku jira iyo su'aasha ka soo bixi doonta dadka la soo weydiin doona bulshada la wadaagi doonaa isbuuciisana waxaan rabnaa su'aalaha aan soo weydiinay inaan si toos ah idinka jawaabno mar walba soo dhawaadana asxaabta meel walba joogtaan oo nagala socotaan sidaad noola socotaan baan idinla soconaa وهجاج عاد بقى وما سنتها مدالو دمان أصحابته كنا لذي نكون حرنا وحلينا عاد بقى وما سنتهين نلا الصعدة وحنكرها نجمع قنانا أنا برامج الشيخ حساب بدن يكون كوكب بدن وايدي صورنا وحبذا بنصورنا وحبذا بنصورنا وبدل دونا ميلا بدن وانتجي دونا على محل ميل تجينا هذا نورنا هذا وين مركعات بقى وما سنتها أصحابته حيدك جت جينا سداسيو مع السلامة